بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه وبعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الأحبة waxaan isku dayayaa kelimaad aan badnayn oo ku saabsiisan mowduuca walaalku tilmaamay alkhaasiruun inaan tilmaamno fi lqur'aan dadka khasaaray ilaahay subxaanaه wa tacaala kitaabkiisa qur-aanka uu inoo soo dejiyey waxaa laynoogu soo dejiyey oo ka mida wuxuu sida mawaasiin waxaynu wax ku qiimaysanno shayga maxaa lagu qiimaynayaa goorma la odhanaya qofku wuu faa'iiday ama ribix buu helay ama wuu faa'iisay ama waa guulaystay goormaase la odhanayaa wuu guuldaraystay oo waa hoogay oo waa ba'ay oo dhib baa haysata goormaa la odhanayaa ilaahay wuxuu inoo tilmaamayaa al-aslu inuu yahay nolol dheer qofka bini aadamkaa in lagu qiimeeyo ma aha noloshu 50 sano ama 60 sano ama 70 sano dunida la kor joogayo noloshu ma aha waxaa rabbi inoo sheegay noloshu inay intaa ka badan tahay oo dadka la soo bixinayo oo albacthu bacda almowt uu jiro oo qiyaamo jiro oo janno iyo naar jiraan sidaa awgeed khasaarada uu qur-aanku ka warramaya waa alkhasaara alabadiya faqad erayga waa la khasaaray qur-aanka wuxuu ugu yaalayo qura markaad aakhiro jabtid markaad rabbigaa seegtid markaad janno weydid markaad naar gashid kaasoo quru qur-aanku khasaare ku tilmaamaya waxa ka sokeeyo oo dhami waa nooc min alibtilaa'aat khasaare maaha walidalik baa ilaahay subxaanaه wa tacaala qur-aanka wuxuu ku leeyahy walcasr ina alinsaana lafii khusr rabu الsamaawaat baa dhaaranaya isagoo marka hore qowlkiisu xaq yahay oo ilaahay subxaanaه wa tacaala isagoo dhaaran wuxuu inoo sheegay ay dhab tahay ayaa ilaahay dhaar ku bilaabay casriga alla ku dhaartay waqtiga ama salaada casar ama waqti alcasar ayan kaan saa doonto u fasire ilaahay wuxuu ku dhaaranayaa casarka marka rabbi dhaartay subxaanaه wa tacaala ayaa haddana waxaa la adeegsaday adawaat الtawkiid fi اluga alcarabiya inna iyo jumla ismiya iyo laam oo dhammaantood tilmaamaya waxa wax af carabiga lagu adkeeyo ilaahay qasamna wuu maray haddana alinsaanu lafii khusrin lama odhane ina alinsaana lafii khusrin baa ilahay yidhi intaan rabbi dhaartaa wuxuu leeyahay aadanuhu waxa xaqiiqa inuu khasaare dhammaanteed ku jiro qof insaanba waxaa la yidhahdaa waa khasaaray goormuu khasaaraha ka baxaa waa mar qura waa inta ugu dambaysee mustathnaa ah inaad soo gasho iyo inaad soo gelin khasaaraha u dhigmaa ma jiro waa khasaare abadiya dunida qofka bini aadamka mushkilaadka qabsado oo dhan wuu ka soo kaban karaa fii amal inaad dib soo kabato haddaad xanuunsato fii amal inaad dib u caafimaaddo haddaad lacag weydo fii amal inaad dib xoolo u heli doonto rajada bini aadamku ma dhigo dunida intuu joogo ama aakhire marka la tago waa fariiqun fi saciir iyo fariiq fi ljanna maa fi amal dambe wax kaloo yaallaa ma jiraan haddii ahlu jannahu janno galaan ahlu naarkana kuwa ku daa'imaya ay galaan rajo dambe oo hadhay ma jirto sida awgeed khuluud abadiya iyo cadaab abadiya ayaa la tilmaamayaa suuradda tani waxay ku dhex jirtaa laba suuradood waxaa ka sarraysa ama ka horraysa aan idhaahno
سورة إلهي سبحانه وتعالى كقول يا ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. هاي علماء إلى هذا سورة أنا واحد أعضاء بين لترون ولا ينبذن labadaa dhexdooday dhacdaa. suuradda hore waxaa lagaga warramayaa waxaa idin mashquuliye baa la leeyay waxaan idin anfacaynin ayaad caqligiinni iyo xooggiinni iyo tamartiinni iyo wixiinaba ku bixiseen. aan isweydiine imisaad balaangaraysaa sida wax loo helo, imisaad se balaangaraysaa sida aakhire loo badbaado noloshaada markaad qiimayso. imise sannadood imisaad wax u baranaysa aad xoogsati aad lacag heshi, imisaad u ordaysa aad lacag heshi, imisaad juhdi iyo awood iyo caqli iyo tamar iyo raganimo waxaad lahayd aad gelisay. seblaankaaga imisaad u dhigtay aakhiro, imisaad sida aad cadaab ka badbaadid oo naar yaad gelin oo qiyaamaha 50 sane la taagan yahay yaad kadeedmi. qiyaamuhu waa 50 sannadood, kadeedka qiyaamaha qura kugu filan xataa haddaan cadaabka lagu geyn, haddaanad kuwa qiyaamaha badbaadaya ka mid ahayn, kuwii ama carshu raxmaan harsanaya ma ilaahay u naxariistay haddaanad ku jirin. inta mowqif alxisaab la taagan yaba 50,000 ayaa ah 50 sannadood. waxaynu ka garan karnaa khasaarahaasi inta aynu ka mashquulsannayo inta aynu ku mashquulsannahay. mid walba wuxuunbaad xisaabisaa waktiga iyo xoog iyo xoolahaad gelisay intuu leegyahay. saa daraaddeed baa ilaahay suuradda hore wuxuu leeyahay alhaakum الtakaathur. takaathur baa idin wareeriyey ama waxbadsi ayaa idin wareeriyey baa ilaahay leeyahy subxaanaه wa tacaala. suuradda kalena waxaa la yidhi waylun likulli humazatin lumazah aladi jamaca maala wacaddadah yaxsabu ana maalahu akhladah كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. سورة كلنا وحالة المامية انت حول أورورسين إن مدن نعمده إن يدته إن لواريه إن لبراريه إن لبرواقي سنة يمكن حوجا أدون يسكنتي ساسا مدن برب لي لا ينبذن. waxaa lagu gelin doonaa lama odhan waxa lagugu tuuri doonaa baa la yidhi adoon qiimo lahayn. shaygu markuu qiimo la-ayay baa la tuuraa. ilaahay wuxuu leeyay waxaa lagugu tuuri doonaa tu wax burburisa alxutama, naar burburiso la yidhaahdo ayaa laydinku tuuri doonaa baa ilahay leeyay subxaana wa tacaala. ayuha alaxiba, khasaarahaasi haddaba dadkii mu'miniintii hore iyo dadkii saalixiinta ahaa iyo dadkii mushfiqiinta ahaa iyo dadkii rabbi ka cabsanayay iyo kuwii warwarayay waa masalada warwarka ku haysa. waa masalada maxay? mushfiqiin ay ahaayeen intay adduunka joogeen, intay adduunka joogeen kuwa habeenkii kaca ahaayeen, intay adduunka joogeen kuwa halkay cagta dhigayaan hubiyo ahaayeen, intay adduunka joogeen waxay dhuuntooda marinayaan eegayay xalaal baa mise waa xaaraan, ma wax naar lagu galaabaa mise waa wax janno lagu galo. ولذلك أي علماء وحيسون نقليا إمام البيهقي في شعابه إيه إمام الطبراني في الأوسط سند صحيحين يا شيخ الألباني وحصول نقلنا إياه. كان الرجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا التقيا لم يفترقا حتى يقرأ أحدهما على الآخر والعصر إن الإنسان لفي خسر ثم يسلم أحدهما على الآخر. حسون نقلنا إني صحابة النبي وهايان هداي لبننا صحابة كلمان ميك لتجي ترين إلا يعني سورة نسوا أخريان مو يعني لما لبك استو صحابي كلما مركا كلا تجان سورة ما يسوا أخريان كدبنا ويس السلامة كدبنا ويس كلا تجان يعني السلامة هي سورة العصر أي عند الصحابة وذا سعوتي
maxay u wada socotay waxay u wada socotay inay isxasuusiyaan inaan adduunkan iyo waxa la wado oo dhammi wax buuran ahayn waxa qure qiimaha leh inuu kaa yihi walidaalika baa ilaahay qur-aanka erayga khasira iyo khasaara iyo wax allaaliya eraygaa lafdiga bikulli tasriifaatihi qur-aanka ku soo arooray wuxuu ugu soo arooro qura bay culammadu yidhaahdaan masaladaa wax allaaliya waxa khasaaro ku soo arooray wax kale kama warramayo lafdigu in badan buu qur-aanka ku yaalaa meelo badanna wuu ku soo arooray laakiin meel kasta uu ku soo arooray wuxuu ka warramayaa un alkhasaara alabadiya taasoo quri inay tahay u fiirsan nabiyullaahi muusa bayt almaqdis markii la yidhi furta ee uu tolkii ku lahaa warjahaatamo bayt almaqdis furta waa dhul alla idin qoray ee gala muxuu ku yidhi walaa tartaduu calaa adbaarikum fatanqalibuu khaasiriin walaa tartaduu calaa adbaarikum waa la hubaa haddaad dagaal gasho in wax idinka dhimanayaan in dhib aada arkayso laakiin taa khasaaro uma arko ee muxuu khasaaro u arkaa iyagoo saalimiin oo baqday oo dib u noqday ayuu wuxuu leeyahy walaa tartaduu calaa adbaarikum fatanqalibuu haddaad dib soo noqotaan markaas baa khasaaraysaan buu leeyahy oo waa maxay ilaahay subxaanahu wa tacaala awaamirtiisa haddaad fulin weydo dee kaa dheer badbaada kaa dheer qur-aanka ilaahay wuxuu inoogu tilmaamayaa dad la dilay bale la gubay oo haddana lagu sheegaya inay iyagu yihiin kuwii fawska kabiirkaa helay liibaanta weyn erayga qur-aanka faaza yafuuzu fawzan alfaa'izuun alfawz isna wax kale qur-aanka uguma yaalo masalada aakhiraa mooyaane cid adduunka guulaysato faa'is lagu sheegay ma jiro qur-aanka ilaahay kitaabkiisu markaa erayga khasaaraha la yidhaahdo iyo erayga fawska la yidhaahdaa waxay gaar ku yihiinoo qura fawska xaqiiqiga ah iyo khasaaraha xaqiiqiga ah dhowr iyo 10 meelood baa qur-aanka waxa ku soo arooray fawza cadiima meella waxaa ku soo arooray fawz kabiira meella waxaa ku soo arooray mid mubiina intuba waxay ka warramayaanuun meelaha qaarna waxaa ku soo arooray hum ulfaa'izuun dhammaantood waxay ka warramayaan ciddii maalintaa badbaaday janno gashay maalintaa qiyaamaha ciddii badbaaday ayuunbaa laga warramaya sidaa awgeed baa ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamaya qutila asxaabu اlkhduud annaari daati اlwaquud id hum calayha qucuud wahum calى ma yafcaluuna biاlmu'miniina shuhuud wamaa naqamuu minhum ila an yu'minuu biاllahi اlcaziizi اlxamiid duul baa ilaahay ka warramaya la gubay iyagoo nool waa tacdiibaadka ugu waxshisan ee bini aadamka lagu sameeyay bay ka mid tahay qof isagoo nool la gubo waliba waxay yidhahdaan culamada taariikh saadiyiin bay ahaayeen kuwa kale saadiyiinta waxaa la yidhahdaa dadka ku raaxaysta dadka tacdiibkooda dad baa jira dadka aan dilin ee inuu toorjargareeyo ku raaxaysta intay kuraasi u dhigteen oo godad u qoteen oo dab loo shiday ayay daawanayeen dadka sida loo gubayo wahum calaa maa yafcaluuna bilmu'miniina shuhuud baa ilaha yidhi xaadir bay ahaayeen mu ahayn nin amarka bixiyo yidhi ha la laayo ma ahayn ee waxay ahayn dad daawanaya oo daawanaya sida dadka loo gubayo sidaa loo cadaabayo kuwii sidaa loo gubay ayaa ilaahay wuxuu ugu gebagabaynayaa ina aladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaati lahum jannaat tajri min taxtiha alanhaaru dalika alfawz اlkabiir kuwii sidaa loo gubay ayaa loo nisbaynaya inay yihiin maxay kuwa helaya alfawz اlkabiir sidaa awgeed ayuha alaxiba qofku isagoo adduunka la dilay buu faa'is noqon karaa dadku maanta waa warwarsan yihin muslimiintii waa la laayay waa kan sax hadday qaataan sida kitaabku sheegaya sunanka ilaahay soo dejiyey waa iska dhicin lahaayeen laakiin ciqaabka dunawiga si jamaaciya buu u yimaadaa maca dalik dad faa'iisay baa ku jira baynu leenahay waa caynkaasiya kuwa la moodaya inay liibaaneen ama guulaysteenna iyagaa ah kuwa khasaaray xataa hadday yihiin kuwa adduunka bedhbidh ku haysta ama nicmaystay nicmada adduunka marka la eego ilaahay ghaswatu uxud muslimiinta waa laga xoog roonaaday soo ma ahayn uxud qaybteedii hore way xoog bateen kadib markay mukhaalafadii sameeyeenna waa laga xoog batay waa la laayey waa la jebiyey
jabkii ku dhacay ragga badh baa orodkii madiine ku galay ragga badh baa iska fadhfadhiistay oo waxay u dagaalamaan ma garan waaye ragga badh baa ku soo ururtuu nebiga difaac calayhi salaatu wasalaam oo say nebiga u difaacayeen xabad xabad loo dilay waxaasoo dhibi markay dhacday ayaa ilaahay subxaana wa tacaala fii suurati ali cimraan ghaswada waxaa lagu tacqiibiyey waxaa lagu gebagabeeyey markii ilaahay ka warramay sidii wax u dhaceen yaa ayuha aladiina aamanuu in tutiicuu aladiina kafaruu yarudduukum calaa acqaabikum fatanqalibuu khaasiriin kuwii iimaanka laga helayow haddaa gaalo maqbashaan baa ilaahay yidhi yarudduukum calaa acqaabikum gomadiinna idinka celinayaan fatanqalibuu khaasiriin markaasaana khasaaraysaan hadda waa jabteenun maydan khasaarin jawla aw jawlatayn dagaalka bini aadamku dhex maro jawla aw jawlatayn haddii lagaa xoog bato khasaaro ma aha laakiin waxaad khasaartay baa ilaahay leeyahy markaad iyaga raacdo tooda markaad raacdo markaa wixii ku dhacay oo dhan lama odhanin waa khasaare ee waxaa looga digay khasaare xaqiiqigo waxaa la yidhi haddaa iyaga raacdaan in tutiicu aladiina kafaruu yarudduukum calaa acqaabikum fatanqalibuu khaasiriin idan alkhasaara alxaqiiqiya almuujica khasaarada dhabta ah ee wax xanuujiseen dhabta ahi waa taa qur-aanka ilaahay wuxuu inoogu tilmaamayaa labadii ibnu aadame isdilay ee aadam dhalay ee mid yidhi war anu waxba kula dagaalami maayo kula deli maayo ee kii kale usoo xaydxaytay inuu dilo kii wax dilay oo nadrada bini aadamka aynu odhanayna waa kii xoog batay ayaa ilaahay wuxuu tilmaamaya inuu iyaga ka khasaaray kii wax dilay hadda kii dhintay lama odhan waa la dilo wuu khasaaray kii wax dilay ayaa ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa faطawacat lahu nafsuhu qatla akhiih faqatalah faasbaxa min alkhaasiriin baa ilahay yihi asbax min alkhaasiriin kuwa khasaaray buu ka mid ahaaday baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala kuwa adduunka bedhbedh nololeed ku haystay oo dhergeyna ilahay wuxuu ku sifaynaya inay khasaareen كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون إلهي قارو شيغي يا هوري oo xoog lahaa oo maal haystay oo caruur lahaa oo ku raaxaystay wixii ay haysteen haddana ilaahay wuxuu leeyahay kuwaasi camalkooduna waa buray adduun iyo aakhirabana ulaa'ika humul khaasiruun baa ilaahay leeyahay kuwa khasaaray waa iyaga idan waxaynu isweydiinaynaa miisaanka aynu wax ku egaynaa waa maxay mentally saynu wax u qiimeynaynaa nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy ninka salaada casar ka tagta fakaannamaa wutira ahluhu wamaaluhu wuxuu la mid yahay mid dad iyo duunyaba waaye qofka dad iyo duunyo waaye innagu maxaynu odhanaynaa war ninkii hebel ahaa balhaya ku dhacday oo maxaa ku dhacay gurigiiba waa dumay uunoo carruurtiina waa madhatay iyo islaantiiba wuxuu adduun haystayna waa ku gubteen ninkaa waa ka naxaynaa soo maaha ilan dad iyo duunyaba waa waaye nabiyullaahi maxamedna wuxuu leeyahay miisaankiinaasi waxaa ka la mid oo ka daran ninkay salaada casar ka tagto ninka salaada casar ka tagta ma tacsiyeynaa oo ma nidhaahnaa wariyaa waa jabay karnay casar daaya midaan shantaba tukan muxuu kuula muuqdaa wadaadadii hore soomaaliyeed wadaad ka mid ah oo subax arbaceed oo bil safar u dambayso ka lahsan reer raray ayay salaani ka soo horbaxday baa la yidhi markaasay ba'nayay jabnayay waa qaylisay aw hebelow miyaad ogeen 4 bil u dambaysaad guuraysaa ay reerka maxaad balada ugu wadaabay ku tiri wuxuu ku yidhi na salaadii subax ma tukatay may bay tiri balaay aday kugu dhantay buu yidhi yani islaantani waxay iyadu arkaysay ama qiimaha la lahaa iyo ninkan sheekha ee miisaankii alle wax ku qiimeynaya waxa qiimaha le laba kala gedisan salaanta inay salaadba ka tagtay bilow ma aragto inay jabtiyo inay hoogtiyo wax kale ku dhacay toona 4 bil u damaysay inuu guuray ayay u aragtaa masiibo cirka ka soo degtay idan mawaasiintu hadday dadka ka qaldanto acmaashay qabanayaana way qaldantaa
miisaanku hadduu qaldamo acmaashuna way qaldantaa waxaa lumay miisaankii aakhiro iyo rabbi qur-aanka haddaad u fiirsato waxa ugu badan ee bage kastoo qur-aanka ka mid a ay safxa bog kastoo qur-aanka ka mid a haddaad furto lagama yaabo inaad labadaa masale ka weydo التوحيد iyo aliman biاlyawm اlaakhira janno naar qiyaame waxa ka dhaci doona aakhiro labadaa mas'alo way adagtay safxo ka mida qur-aanka inaad weydo oo aanay ku qorayn waayo waa labada muhimadda le in qofku qalbigiisa ay xaadir ku ahdo saa daraaddeed baa ilaahay qur-aanka inoogu badiyey si ay caqligeenna u degto beyj walba inaad ku hayso ayuha alaxiba waxaynu khasaaraha u naqaanaa khasaare maaha ولذلك بقى إلهي القرآن كوحي نقول إيه يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم وأولادكم ولا أولادكم عن ذكر الله يا أيها الذين آمنوا وركوا إيمانك لقاها لا يوبا إلهي لي يا إذن مشغولين حولهن يا عرورتين إلهي حسكي سيئين كم مشغولين لا بقى الله سنين عليه ذكر الله سبحانه وتعالى إيه حول أي عرور dabeetana ilaahay wuxuu leeyay xoolaha iyo carruurta iyo ilaahay xuskii ku ilowsiin oo ka mashquulin haddii ay dhacdo maxaa dhacaya xoolaha iyo carruurtiiba haddaad dhaqdo ay bataan laakiin dikrigii ay kaa mashquuliyeen maxaa dhacaya waman yafcal dalik fa ulaa'ika hum alkhaasiruun baa ilaahay waman yafcal dalik ninka taa sameeya baa la yidhi carruur baan dhalayay iyo xoolaan dhaqayay iyo dhowr dumaraan guursanayay iyo daaraan dhisayay aakhiradiisa kaga mashquula waman yafcal dalik fa ulaa'ika hum alkhaasiruun baa ilaahay kuwaas baa ah kuwa khasaaray kuwa hoogay waa iyaga baa ilaahay leeyahy waayo adduunkan iyo xoolahan iyo waxaanaad sheegaysaa waa maalmo adduunka adoo qaawan baad soo gashay dabeetana maro yar baa lagugu duuduubay oo ilmaa dhashay baa la yidhi oo waa la mashxarado halkaa lagu dhigay hadhowna adoo qaawan unbaad ka baxaysaa maro yar intay kugu duuduubaan unbay god ku dhigayaan wax kaa raacaya ma jiro adoo qaawanna waad imanaysaa maro yar baa marka ka dhalato lagugu qaban berritana adoo qaawan baad baxaysaa walaa taajir hebel baa lagu odhanaya walaa aw hebel ciddaba ku hadal haynaysaa ma jirto maradaa intaa lagugu duuduubo kale ayuunba godka lagugu daboolaya saa daraaddeed akbar khasaara waa meeshaad u socotay inaad ilowdo meeshaad u socotay waxa sahay ka ah waxa wax ka tara intaad ilowdo waxaan waxba ku tarin inaad ku mashquusho sida loo beero iyo sida loo xoojiyo miisaanku dadku ka qaldamay baa ilaahay tilmaamaya qur-aanka وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون baa ilaahay waa miisaan maadiya dadkii haystay dadkii materialka wax ku qiimeynaya waa ninkaa hebel wallahi ninkaasi waa barlaawo bay soomaalidu tidhahda soo maaha barlaawo miskiin waxba ma haysto hebella ninkaas waa loo furayo xoolu ka dharkay waxaa laga yaabaa kan barlaawahay ku sheegayaan kunkanaynu ku xoog badan miisaanka xaqiiqiga marka la eego walidaalika baa nabiga calayhi salaatu wasalaam majlis fadhiyaan nin soo maray markaasuu yidhi ninkaa maxay idinla tay ila fadhiyo yidhi ninkaa maxay kula eegtay wuxuu yidhi ninkaasi waa nin hadduu hadlo waa nin la dhegaystaa hadduu gabadh ku weydiisto waa nin la siiyaa yacni bikulli almawaasiin albashariya buu leeyahy waa ninkaasi waa nin raga nebigu waxba ma odhan iska aamus mid kalaan soo maray oo iska yara haylhayle kaana ka warran buu ku yidhi markaasu wuxuu yihi kaasi dee golow ka hadlayana cidi dhegaysan maysa buu yidhi nin hadduu warramana cidi warkiisa u dhegtaagaysa ma aha hadduu gabadh ku doosana nin cidi gabadh siisanaysa ma aha hadduu erge kuugu yimaadana nin ergadiisa la aqbalaya maaha kii hore saddexdaba waa loo aqbalayaa baa layidhi hadduu ku ergeeyana waad ka aqbalaysaa hadduu wax ku weydiisto gabadh waad siinaysaa waa hadduu hadlo waad hadalkiisa dhegaysa kanna waxay dhaheen saddexda midna ma leh wuxuu nebigu ku tilmaamay lamil-u kaa hore dhulka muggiyo ka hore ah kan baa ka fiican buu nebigu yihi alayh isalaatu wasalaam bal hadduu qiyaas kii hore dhulka muggi adduunka muggi iyo ninka hore gurubkiisa ah waxaa ka fiican kan macnuhu ma aha in xooluhu waxa la maagaya ay yihiin ama in qofka la dhegaysta waxa la maagaya waxa la maagaya waxa weeyaan
waa markaad khasaaraha dhabtaa ilowdo wixii wax lagu qiimeynayay waxaan ahayn miisaankaagu markuu noqdo mawaasiintaad wax ku qiimaysanayso dhami markay noqoto mawaasiin aan ahayn mawaasiintii rabbi wax ku qiimeynayay nabiyullaahi maxamed baa saxaabada ku yidhi hadduu idin yimaado uways ilqarani nin la yidhaahdo ka ducaysta uways waa kuma waa nimaan bar adduun haysan oo inta baras ku dhacday ilaahay ka caafimaadiyey weliba calaamaddii baraskuna kusii taallo uwayska caynkaasi yuu nebi maxamed leeyahy ka ducaysta nin ka mid ah qabiilkaasi iyo soo xaj tegay baa la weydiiye o waxaa la yidhi ninkaasi ma jiraan ninka caynka ah ninkaa bay yidhahdeen laa yu'bahu lah cidina ma darayso buul yar bu iskaga jira dee waa uun dadkaa uun noloshun ka mid ah laakiin waxba qiima kuma laha markaasuu u sheegay in nebi maxamed yidhi haddaa aragtaan ka ducaysta culamada bar baa waxay ku tilmaamaan inuu yahay ninka u fadli badan taabiciinta marka laga warramayo waa maxay miisaanka wax lagu eegayaa miisaankaa aan ahayn qoladan gaaleed waxay leeyihiin waqaala almala'u aladiina kafaruu kuwii gaaloobay madaxyo weyntoodii siyaasiyiintoodii dhaqaalayahanadoodii intii waxhaysatay almala duubweyntoodii baa waxay ku leeyihiin dadkii lain itabactum shucayban nebi shucayb haddaad raacdaan inakum idan la khaasiruun war waa khasaaraysaan ilaahay baa ka jawaabay nimankaas waxay yidhaahdeen ilahay muxuu kaga jawaabay faakhadathm الrajfatu faasbaxuu fii daarihim jaatimiin aladiina kadabuu shucayba kaan lam yagnaw fiiha aladiina kadabuu shucayba kaanuu hum اlkhaasiriin baa ilahay yidhi soo iyagu ma ilahayn haddaad raacdaa waa khasaaraysaan ilaahay wuxuu leeyahy waa la halaagay kuwaas kuwii nebi shucayb beeniyey iyagaa ah baa ilaahay yidhi kuwa khasaaray iyagu kuwo kaley lahayn waa khasaareene miisaanka saxa ah haddaad rabtaan kuwa khasaaray waa kuwaas yacni nebigu calayh الsalaatu wasalaam wuxuu tilmaamayaa ina rabbaka ilaahay inuu u kaadiyo qof daalima laakiin hadduu qabto ma baxsado sidaa awgeed rabbi wuxuu ina leeyahy faacbuduu maa shiئtum min duuni faacbuduu waa litahdiid caabuda waxa aada doontaan ilaahay sokadii baa la yidhi faacbuduu maa shiئtum min duuni اllah min duuni ilaahay sokadii waxaad doontaan caabuda qul waxaad ku tidhaahdaa baa ilaahay leeyay nebi maxamedow ina alkhaasiriina aladiina khasiruu anfusahum waahlihim yowma alqiyaama alaa dalika huwa alkhusraan اlmubiin waxaad se u sheegtaa baa la yidhi kuwa khasaaray inay yihiinoo qura aakhiro kuwa naf iyo ehelba khasaaray un inay yihiin war hooy khasaare waa kaas baa ilaahayna leeyahy alaa dalika huwa alkhusraan اlmubiin khasaare haddaad rabtaan baa ilaahay leeyahy waa kanunba khasaaraa idan ayuha alaxiba noloshan adduun iyo bidhbidhkeeda iyo ku mashquulkeedu maaha shayga ugu muhiimsan وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم إلهي مركو ينوشك كو خسارك ويين وحكى الله ينوشك مؤمن كي يسجر رميسان النبطة هنا ميزانك وهيستعين كايا وقال الذين آمنوا كو إيمانك لقاها لي وحي لهذين إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم إذن موازينة مؤمن كدبت هي موازينة ربي واسكمت قرآنك وحشيغ يا مركة أهل كفر كو إنيك وخسارة والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون maanta waxa laga yaabaa dadka inay dad badan la weyn yihiin gaaladu la weyn yihiin waxoogaaga adduunka ay haystaan la weyn yihiin bidhbidhka nololeed ay ku nool yihiin laakiin ilaahay wuxuu ina leeyahay kuwa baatilka rumeeyey ee rabbi ka gaaloobay iyaga khasaaray waxaa rabbi inoo tilmaamayaa idinkuna haddaa mushrikiin noqotaan unbaa khasaartaan walaqad uxiya ilayka waila aladiina min qablik لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بقى إلهي النبي محمد كبير عليه الصلاة والسلام
adiga iyo intii kaa horraysayba ee nebiyaha waxa loo waxyooday haddaad shirki ku dhacdaan in camalkiina buri adduun iyo aakhiraba inay khasaaraysaan mar kastoo gaalnimada ay kusii fogaadaanba khasaarahay kusii fogaadeen baa ilahay yidhi walaa yaziidu alkaafiriina kufruhum cinda rabbihim ilaa maqta walaa yaziidu alkaafiriina kufruhum ilaa khasaara gaalnimadu mar kasta uu sii madaxadaygaba khasaaruhu buu sii kororsaday baa ilaahay leeyahy sidaa awgeed kuwa gaaloobay rabbi ka gaaloobay waa khasaare kuwa aakhire ka gaaloobay in aladiina laa yu'minuuna biاlaakhirati zayanna lahum acmaalahum fahum yacmahuun ulaa'ika aladiina lahum suuءu اlcadaabi wahum fi اlaakhirati hum اlakhsaruun kuwa aakhire hilmaamay ee adduunka aan camalkooda u qurqurxinnay baa ilaahay leeyahy ee aakhire ka indhalay cadaab kulul bay leeyihin cadaab fool xun bay leeyihin aakhirana iyaga ah kuwa khasaaray wixii diinta islaam ka weecdaba khasaaray baa ilaahay qur-aanku leeyahy waman yabtagi gayra alislaami diinan falan yuqbala minhu wa huwa fi laakhirati min alkhaasiriin ilaahay wuxuu leeyahy inta shayطaan raacdaa khasaartay shayطaan muxuu lahaa wala udilannahum wala umaniyannahum wala aamurannahum fala yubatikuna aadaana alancaami wala aamurannahum fala yugayiruna khalqa allah waan lumin buu shaydaan ballan qaado laaqcudana siraad kasta waan u fadhiisan buu ballan qaaday waan yidi diilo gelin buu ballan qaaday laysa biamaaniyikum walaa amaaniyi ahli اlkitaab man yacmal suuءan yujza bihi baa ilahay isna wuxuu leeyay walaa umaniyannahum waa xoolo shaydaan umniyadu waxaan fari doonaa buu leeyahay dabeetana xumaha dhammaantii ilaahayna wuxuu leeyahy subxaanaه wa tacaala waman yatakid الshayطaana waliya min duuni اllah faqad khasira khusraana mubiina ninkii shayطaan gargaar iyo hiil ka dhigta ama kuu jecelya ka dhigta ama u dhowaada alle sokadii faqad khasira khusraana mubiina khasaare cad buu khasaaray baa ilaahay leeyahy qur-aanka waxaa ilahay ku tilmaamaya inta rususha beenisaa khasaartay qur-aanka ilahay wuxuu ku tilmaamaya inta daalimiinta abaa khasaartay qur-aanka ilahay wuxuu ku tilmaamaya inta sabir weyday baa khasaartay hayru saabiriina cala alxaq iimaanka markaad sheegato waa lagu itixaami caafimaadkaa lagaa itixaami carruurtaa lagaa itixaami jeebkaa lagaa itixaami iyo dhaqaalaha amnigaa lagaa itixaami imtixaan baad mari doontaa ilahay wuxuu leeyay wa min annaasi man yacbud اllaha calى xarf fain asaabahu khayru iطma'an wain asaabathu fitnaة inqalaba calى wajhi khasira الdunya wاlaakhira dalika huwa alkhusraan اlmubiin dadka waxaa ka mida baa ilahay leeyay qaar rabbi caabuda laakiin dacal ka caabuda oo waa maxay hadduu waxoogaa hatiyo helana waa degaya wuxuu leeyahy ha waa la fiicanya salaadda waa wadaya haddayse ku yara adkaato dib buu nolosha uga noqonayaa baa ilaahay leeyahy inqalaba calaa wajhi hadday nolosha ku adkaato waaba ilaabayaa kaas waa maxay ilaahay muxuu leeyahy khasira addunya waalaakhira baa ilahay yidhi adduun iyo aakhiraba kaasi waa hooga dalika huwa alkhusraan اlmubiin ilahay wuxuuna leeyay waxaa khasaaray kuwa diinta ilaahay inay faafto diidan xaqa kuwa is hortaagiyo faafkeeda kuwaasaa khasaaray aladiina yasuduuna can sabiili اllah wayabguunahaa ciwaja wahum biاlaakhirati hum kaafiruun ulaa'ika lam yakunuu mucjiziina fi اlardi wama kana lahum min duuni illahi min awliya yudaacafu lahum اlcadaabu ma kanuu yastatiicuuna الsamc wama kanuu yubsiruun ulaa'ika aladiina khasiruu anfusahum wadala canhum ma kanuu yaftaruun laa jarama anahum fi اlaakhirati hum اlakhsaruun ilahay wuxuu leeyay kuwa ilaahay diintiisa dadka u diiday dunida maanta muslim baan ahay waaba khatar caalamka maanta la joogo caalamka maanta la jooga rag baa rabaa kitaabka waxaynu rumaynaya waxaanay rumaynayna iyagu inoo sheegaan ta maqas la dhex geliya in la yidhaahdo aayadahaasina waa more modern kuwaasina waa more radical qur-aanka intaa haddaad rumaysana waa islaamka cusub ee dadka la socon karaa intaa kale waa islaam radical waa islaam siyaasiya waa islaam jihaadiya waa islaamkana
waa islaam aan dunida la socon karin xataa kitaabuna noloshii kaloo dhan markay qaateen imika waxay soo gaadhay kitaabka intaad rumaynaysaa baa la isweydiinaya qur-aanka kan intaad rumaynaysaa in baan la rabin inaad rumayso dabeetana ilaahay wuxuu leeyay kuwa ilaahay jidkiisa dadka u diida ee raba iyadoo qalloocan jid qalloocan doonaya aakhiranaba aan rumaysnayni hadda kuwaas ilaahay ma cagsi gelin karaan baa ilaahay leeyay ulaa'ika lam yakunuu mucjiziina fi lard ilaahay dhulka kuma cajsi gelinayaan ilaahay sokadiina cid u hiilisa heli maayaan ee ilaahay unbaa imtixaamayo wakhtaa loo ogolaaday kuwa waxaa la yidhi laakiin aakhire markay yimaadaan yudaacafu lahum alcadaab booskii naareed baanay weli gaadhin ee loogu talagalay meel sokay marinayaan marka inahan markay kusii darsadaan yudaacafu lahum alcadaabu ma kaanuu yastatiicuuna asamca wama kaanuu yubsiruun maqal iyo aragtoona yeelan maayaan baa lagu tilmaamaya ilahay markaasuu yihi ulaa'ika aladiina khasiruu anfusahum wadalla canhum ma kaanuu yaftaruun kuwaasa kuwa khasaaray idan ayuha alaxiba qur-aanka ilaahay wuxuu leeyay kuwa dhulka fasahaadiya ayaa khasaaray almufsiduun kuwa aladiina yanquduuna cahd allahi min bacdi miihaaqih wayaqطacuuna ma amara allahu bihi an yusala wayufsiduuna fi lard kuwa ilaahay ballankiisa burinaya ilahay ballamo badan buu inaga qaaday tawxiidku waa ballan waxaa ka dambeeya o dhan inaad aqbalaysa ah oo ay ugu horeyso inaad rukuucayso sujuudayso wejiga dhulka dhigaysid salaaddu waa tawxiid camaliya waa tawxiidkiiyo more practical ah ilahay wuxuu leeyay kuwa ilaahay cahdigiisa buriya kadib intay adkeeyeen oo gooye wixii rabbi yidhi xidhiidhiya oo xidhiidhiya wixii la yidhi gooye oo dhulka fasahaadiya ulaa'ika hum alkhaasiruun baa ilahay yidhi kuwaasaa khasaaray haddaba hadday khasaaruhu uu kaa uun yahay aakhira hal miisaanun baa yaal baa ilaahay leeyahy miisaankaasi ilaahay wuxuu leeyahy waman khafat mawaasiinuhu faulaa'ika aladiina khasiruu anfusahum fi jahannama khaaliduun halka miisaana aakhiro yaalla waa kaa uun ninkii mawaasiintiisa camalka saalixa iyo qiimayntuu rabbi iyo aakhira ku lahayd ay fududaato kuwaasi waa kuwa khasaaray naar baanay ku waarayaan baa ilaahay leeyahy qur-aanku dabeetana asnaaf tiro badan buu ka warramaya kuwa khasaare ka mid ah qad khasira aladiina qataluu أwlaadahum safaha bغayri cilmi وxaramuu ma razaqahum اllahu اftiraaءa calى اllah waxaa ilaahay tilmaamayaa kooxo tiro badan nabiy llaahi aadam iyo haweenaydiisii maxay ku ducayseen qaala rabbana dalamna anfusana wain lam tغfir lana وtarxamna lanakunana min alkhaasiriin qofka bini aadamkaana musiibo ku dhacda wuxuunba ugu weyn musiibo diinay haddaba ayuha alaxiba waxaa laga yaaba dadku inay isweydiinayaan acmaashii saalixay dadku samaynayay baa yaraatay waxan baa yaraaday waxan baa yaraaday waxa yareeyey waa mawaasiinta iyo mafaahiimta qaldantay dadku wixii uu wax ku qiimeynayey iyo wixii uu wanaagga u arkayey ayaa isbedelay haddii mafhuumkaagu isbedelo iyo sidaad nolosha u aragto iyo angalka aad ka egaysaa hadduu isbedelo waxaad qabanaysa iyo acmaashaadoo dhammina way isla bedelayaan ninkay noloshiisa mudnaanta koowaad aakhira leedahay ninkay noloshiisa mudnaanta koowaad rabbigii leeyahay acmaashu qabanaya waxay u badanayaan kuwa halkaa wax ka tara wax kasta uu qabanayo wuxuu isweydiinayaa imisoo aakhire ka gooya ninkay mudnaanta koowaad noloshiisu leedahay adduunka kan wax kasta uu qabanayo wuxuu isweydiinayaa muxuu adduunka ka gooyaa maxaa la helayaa buu isweydiinayaa waxaan haddaan sameeyo maxaan helayaa maxaan anigu faa'iidayaa maxay soo gelaya haddii la yidhaha lacag baa ku soo gelaysa ama wasiir baad noqonaysa ana wuu dheerayn haddii la yidhahda ilaahay dartii baa loo qabanaya waxba ku soo geli maayaana bal mashquul baan yara ahay iminka buu ku leeyahay meelaha kale bal cid kale uu mashquuli un markaa waayo miisaankiisa ah adduunka maxaan helayaa miisaankiisa ah adduunka maxaan helayaa mar hadduu miisaanku yahay adduunka maxaan helayaa waxaad wax ku qiimeynaysa o dhami waa adduunyo hadduu miisaanku kaa iska bedelo oo uu noqdo aakhire maxaan helayaana waxaad wax ku qiimeynaysa o dhami wuxuu isu bedelayaa maxay aakhiro walidalik baa saxaabadii
iyo dadkii wanaagsanaaye dunida soo maray muslimiinta ah oo dhan miisaankay wax ku qiimeynayeen baa kaa ahaa. guusha waxaasay u arkayeen, guuldarradana waxan bay u arkayeen, guuldarradana waxan bay u arkayeen. marka meel dhulka muslimiinta ka mida la qabsado ama dad muslima la dila ama waxaasi dhacaan, dadkoo dhan oo qaylinaya ku imanaya, sheekh maxaa uga hadli weydeen muslimiintii waa la gumaaday, waxan baa dhacay, waxan baa dhacay. garta haddaynu se isweydiino war reerka imisaa tukada imisaa se tukanin, wallaahi dee uun ilaahay wuxuu qorun baa dhici buku odhan. cid xisaabisay reerkiina inta tukatay intaan tukan ma leedi, ila intaan tukanay hoogtaya. reerku ma markuu dhaqaaluhu ka xumaada unbaad adigu warwaraysaa oo ka fekeraysaa, mise marka diinku ka xumaado, markay aakhire ilaabaan, marka dunuubta ku badato, marka fisqigu ku bato, marka xumaha ku tira bato. yacni mawaasiinta lunsan, inta miisaanku lunsan yahayna habowgaasaynu ku jiraynaa. waa tiihii reer banu israa'iil oo kale. reer banu israa'iil waa ilaahay baa idin yidhi halkaa ka jahatamo qudustaa qabsada baa la yidhi, dabeetana dib bay usoo yaaceen, dabeetana tiihi bay galeen. dee innagana wixii layna faray haddii laynaga waayo tiihi waa halkii u wain cudtum cudnaa baa ilahay iyaga ku yidhi. xuma haddaa ku noqotaan ilaahayna mashaakilka idinku soo celinaya. idan ayuha alaxiba, kelmadaydu waa erey kooban oo laba erey lagu odhan karayey. awoo dhan waxaan akrinayay waa laba erey. waa miisaanka aynu nolosha ku miisaamayna aan dib ugu noqono oo garanno waxa qiimo wuxuu agtaada ku leeyahay markuu alle agtiisa qiimo ku yeesho. markuu aakhire wax kaaga gooyana u arag shay qiimo leh inuu yahay. haddaanu aakhire waxba ka gooynayna waa shay taafiha. sala allahu calaa muxamedin wacala aalihi wasaxbihi wasalam walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin.